waxaan ula tagnay anagu 5 qodob baan la tagnay oo ah 5 qodob ee ah rukunka u ah in doorashada madaxweyne waqtigeeda dhacdo oo waxa uu muhiim ah in horta madaxweynuhu committee ku yahay in doorashadu waqtigeedii ay dhacdo November 13keedii si uu dhacdana rukumadii demonstrationka oo ka mid ah commissionka oo hadda shaqadii la joojiyay oo galiyana magaranayay guddi baaris sawiiri iyo inuu magaranayay uu sameey diiwaangelintii oo heed in la bilaabo ayaa qodobadan ula tagnay waxaan kaloo laga tagnay in faragelinta madax banaanida commissionka la ilaaliyo sida caadi ahaan jirtay iyo xilka agaasimaha guud ee commissionka oo ahaan jirin qof la soo appoint gareeyo shaqaalaheed ahaan jiray qof xirfad yaqaan ah oo la baahiyo oo commissionku si madax banaan oo dalbado intaasaan wada tagnay nasiib darro waxaan u tagnay horta madaxweyne careysan oo moodidii in isaga la dulmiyay oo waliba aanay dulmo badan iga sheeganaya anigu markaa madaxweynuhu qorshihiisii ahaa inuu ururada furo bisha magaranayay June 26keeda ayaa ka go'need marka madaxweynuhu waxaan tahay madaxweynuhu qorshihiisii uu dhigtay daafacaya laakiin aan ka muuqan madaxweyne flexible oo u diyaara in la isriixo si ku noolaan jirnay magaranayay wada tashi iyo consensuskii tanaasulka ku soo dhaxmaarnay aan u diyaareen ayaan u tagnay caawa madaxweynahan arkay madaxweyne diyaar u ah wada hadal iyo wada jir iyo wada tashi iyo doorasho inuu qabto madaxweyne uma diyaaraha